السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة waxaad ku soo dhawaataan shabakada caalamiga Somaliland Live. waxaanu maanta idin soo gudbin doonaa beer nooceed hore loo arag oo laga sameeyay magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda New Hargeysa. waxa beertan laga beeray ubaxyo aan dalka hore loogu arag, waxaana beertan maalgeliyay ama mulkiilaheedu yahay Baasha Jaamac Maxamed. waa aqoon-yahan daayar qurba jooga, dalkiisana u huray waqtigiisa si uga faa'iideyn lahaa iyo xooggiisaba. waxa uu Baasha Jaamac Maxamed Somaliland kusoo kordhiyay ama beertan uu ka beeray ubaxyo aan dalka hore loogu arag oo dibadaha laga keenay. wuxuu diyaar u yahay inuu dalkiisa qurxiyo. Baashe oo arrimaha inoo sharxayana wuxuu yidhi sidan. runtii waxbaan laga kala yar dhiman. haddana waxaa anagu war badan isku tagnay inaanu magaalada aan wax ka qabano. afar qof baanu nahay, afarta qof oo qurba joog iyo kolley qurba joog baa la yidhahdaa, anuma qurba joog ka ah. runtii halkan waxaa lagu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed oo noogu deeqay goobtan ayada ay ku joogto. waxaan jeclahay waa aragtaan adduunyadu maanta dhibaato ka taagan xagga cimiladana waxaa quseeya waxaan daba taagan. inagu xoolaynu leenahay, xoolaaynu leenahay inaynu cimiladooda hagaajino waa muhiim. taas ay u kaliftay iyadoo maanta xooleynu dabargo ay kusii jiraan. runtii halka waxaa noolan jiray magaalada Hargeysa libaax baa ku noolaan jiray iyo maroodiyaan. dadkii markii ay soo galeen ay farabateen bay libaaxii maroodiga ka tegey. waxaan jeclahay runtii xooleyna haddaanan u dadaalin oonan waxba u qaban ayaguna weyn naga tegi. kolley waxaa hawshan faraha badan la qabtay Faysal Jaamac oo injineera oo runtii waxaa fara badan ila beeray. shirkadna waa nahay. waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay madaalka dhirkeena anigayna maadnaba Germany baan ka keenay iyadoo aan shidada ku sugno. waxaana xoog agaasimaha bixida Faysal Jaamac. marka runtii waxaan jeclahay inay reer Somalilandna ay nagu daydaan. fikraddan maxaa ku leeyahay? fikraddan waxaa ku leeyahay markii aan Somaliland ugu horreysay ayaa waxaan arkay in dadkeenu waxyaalo fara badan oo dhibaato ay ku hayso ay jiraan. waxaa ka mid ah waxa la yidhahdaa Somaliland qaadka ayaa lacagta ugu badan inaga baxdaa lagu soo iibsanaa. maaha lacagta ugu badan maalintii $2 milyan oo khudrada Itoobiya naga galaa ama Yemen. taas ay u kaliftay inaan waxaan beerno. maasantay waxaan dawladda gelin doonaa beerta iyo wixii yaala ama waxyada la beeray. baashana inoo sharxi doona. kolley haddii waxaan ka bilowno had iyo goor meelaha bilicdaa lagu dhiso. runtii waxaana la yidhahaa bacar baanu bixin af Soomaali, bacar baanu bixin. runtii magacyada Soomaaliga waa naga wada maqan yihin, laakiin inaynu bedelno ayaa qurux badan. insha Allah waanu bixin doonaa magacyo dambe waanu bixin doonaa. runtii dhirtana waa dhirta dabadda la dhigo quruxda badan leh. falaawarada ah waxaanoo dhan wada falaawar. halkan waxaan ku beernay tamaandhadii, halkan waxaan ku beernay cambihii, halkan waxaan ku beernay tufaaxii. marka kolley injineerka oo Faysal Jaamac ayuunbaa idiin sii wadi doona, idiin sharxi doona. waxa aan dhirtani waxa weeye dhir badan oo kala jaajaad ah oo ah la yidhaahdo ubax kala jaada, la yidhaahdo huruudi, la yidhaahdo mixi, la yidhaahdo kotome, la yidhaahdo sikibit, la yidhaahdo dhir badan oo kala nooca weeyaan oo aan soo koobi karin oo ay la 150 kala jaado nooc. walaal si aragtaan waxaan maanta xariga ka jarannaa ama aan furannaa shirkadda magaceedu uu yahay Bilicsan Garden. waxaa loogu talagalay shirkaddan aan ugu talagalay markaan aasaasnay maadaama oo ogtihiin dhirtu quruxda ay leedahay ama
qiimaha ay ugu fadhido nolosha bini'aadanka waxa aanu garanay inaanu asaasno shirkad waxa weeye dalka dharaysa ama bilicda dalka soo jiidata saa ogtiin waddooyinkeenna ama meelaha laamiyada ah ama meelaha istireedada la iskugu yimaado waxa weeyaan foolxumada ay leedahay ama waxa weeye basiirada ka muuqata waa arkasaan markaa waxaanu ugu talagalay inaan ku dhirayno oo aanu guri wal iyo bakhaar waliba uu ku hoos beero geed dhirtan waa dhir kala nooca waxa weeye imaka in badan ayaanu hawsheeda aanu ku jirnay sidii aan u fur lahayn alxamdulillah maanta meel fiican bay maraysaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa waa arkasaan quruxda ay leedahay dhirtu isku mid maaha nin meel boodhla ka soo toosaya ama dhagaxaan iyo qashin yaallo iyo nin waxa weeye muxuu ahaa ka soo toosaya meel uu ubax iyo meel doogli waxa weeye isku mid maaha indhihiinaana idin macallin ah ku soo dhowaada bilicsan garden